وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين وبعد. المحاضرة المانتا وحيوان كذو يهي قل الحق ولو كان من الله حق الشيء ولو هدو دونا دعرتها كقرار هذا محاضرة المركة عيوان كذو وسيداس مانتا إن شاء الله تعالى. وحكا هذا دونا أهل السنة والجماعة إيا وهابية لبدا قولبا عيبها إليهم يدليلوه ذا كوا وين بان ربا إن شاء الله تعالى إلى المحاضرة تنكسو قديانيق أو ظل مركو سمينية. هذا كهر مرو قولدا اللي يلاهدو وهابية وحوية لباطوين كودو وين أم عيبوه ذا كوا وين وحوية كو إليه المشبه وإلهي سبحانه وتعالى مخلوق يسوع يسروك لصارنين taasina waxa weeyaan midaan iska leenahay ma aha waa mid uu ogaan karo qof kasta oo kutubahooda akhriyay ayadoo markaa caqiidadiisu ay dhisan tahay oo sidii saxda ahayd ee aimatu salaf aimatu diin salafan wa khalafan ay markaa waxa weeyaan sifaadka alle iyo asmaadiisa ay macnaha u dhigeen ama ay u sharxeen soo fahmay kutubtoodana fiiriyaa u garan karo way. ceebta labaad waxa weeye inay yihiin dad takfiiriyiin oo adnaa shay-in wax la arka waxa uu yar ummadda ku gaalaysiinaya dhiigooda iyo maalkooda iyo cirdigoodana markaa ku xalaalaysanaya. taasina waxa weeyaan qof kasta oo kutubahooda akhriya iyo mabaadida u qoran ayaa markaas waxa weeyaan ogaanaya waqtiga ugu yar buu ku ogaan karaa. ma xukumana qof hadal iska turay oo meel ka hadlay waxaan wax ku xukumanaa waa mabaadida qoran ee kutubaha markaa ku xardhan way. waxay u yaqaanaan gaalnimo iyo shirki wax uusan nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam gaalnimo iyo shirki uusan aqoonin saxaabada iyo salafka aysan aqoonin. waxaa la odhan karaa haddii ay soo gaadh lahay nabiga calayhi salaatu wasalaam wax badan bay ku qabsan lahay odhan lahay kadaa waxani waa shirki rasuulka ilaahi ummadda waa xaqiiqataasi. waxay kale oo markaa ceebahooda iyo dhibaatooyinkooda ay yihiin inay ummaddii markay caqiid ahaan u fasahadiyeen camal ahaanna ay u fasahadiyeen. waxaynu arkaynaa masaa'il badan oo fiqhiyaad oo ummaddii lagu jahwareeriyey. marka koowaad waxay sameeyeen ummaddan matalanba soomaaliyeed waxay ahayd ummad shaaficiyo madhabka shaaficiga markaas ku dhaqanta madaahib kale oo markaas waxa weeyaan mulafaqa oo midba wax laga soo qaatay oo xitaa marjicooda aan la garanaynin ummaddii lagu soo dhex daayay dabeedna looga dhigay sunnadii nebiga oo hadda timi calayhi salaatu wasalaam madhabkii ummaddani ay haysatayna looga dhigay wax bidca oo markaa qowl shiikh ah. masaa-isha ummadda matalan ba aafada ku ah runtii oo aada iyo aada markaa masiibada uga waxaa ka mid ah naag saddexdiiba lagu furay intaasoo jeer la furay oo lagu noqnoqday in la leeyahay ma furna oo laisku celinayo oo halkaa markaas de waxa kasoo baxaya madarada iyo dhibaatada uu keenaya la garan karo. waxaa ka mid ah in waxa weeye la yidhi matagu waa daahir. maxnaa waynu ognahay salaada baab dhan bay leeda baabu dahara la yidhaahdo oo leh maqaasid leh oo markaa wasaa'il leh oo wasaa'il leh oo shuruud leh oo waajibaad leh oo kan leh oo intaasoo abwaab ka kooban kitaabu dahara. dahaaradu markaa waa aasaaskii cibaadadii waxa weeyaan salaada la odhan jiray ee cibaadada badaniga ah ugu fadliga badnayd ee hormuudka u ahayd ayaa ku tawquftay cibaadooyin kale. dahaaradii dhammaydba meesha waa laga saara. waxaa hadda in maqlanaa matagu waa daahir, qabrigu waa daahir, wafaarku waa daahir, waxa weeyaan dhiigu waa daahir, wax nijaasiihba ma jira. intuu qofku masaajidka ku matago uu saa cibaadadiisa u marmarinay subxaana malika qudus. masaa-ishaasi markaa aad bay u fara badan yihiin. markaa saddexdaa jihaba waxa weeyaan dhibaatooyinkooda waa ka jiraan inay mushabiha yihiin oo hadday iyagu mushabiha noqon waayaan adduunkaba cid mushabiha laga heli maayo. inay takfiiriyiin yihiin oo hadday iyagu takfiiriyiin noqon waayaan waxa weeyaan adduunkaba cid takfiiriyiin laga heli maayo. xaggana is weydiin mala inay dadka camalka jecel hadda salaadii oo kale waxaa leeyahay salaadu allahu akbar bay ku xidhantaa. lidaa dadku salaad ma tukanaan baa la odhan karaa salaadu allahu akbar ha ku xidhanta lakin waxbaa ka horreeya niyaa ka horreysa. haddii aad diiday nudqiga kaba soo qaad bidca qabiixa inay tahay ku dhawaaqidu miyaan qalbiga niyada lagu soo xadin loo baahnayn. wuxuu hab abaanaa ximaaran aw xajaran mulqan fi lbaxri alasnaa min ummin waaxidin buli. war haddii niyada ku dhawaaqitaankeeda aad bidca ka dhigteen miyaan qalbiga niya looga baahnayn. dadkii waxaa loo yidhi salaadu allahu akbar ku xidhantaa suu qof kusoo dabaqlay allahu akbar isku odhanaya waxaa laala wuxuu dhihi ma jirto waa salaad laan dadki taarabsooda kusoo baxaya
marka mafaasida iyo dhibaatooyinka ay marka ummadda u geysteen waa mid aan soo koobi karin halka marka ayaga uga gudbo maanta ayaga macnaha maartay hadda waa dulmar ee meeshan u socdo waa halkan soo socota waxa weeye ahlus sunna wal jamaa marka koobaad 8 sanji bay ka kooban yihiin fuqaha ay leeyihiin muhaddisiin bay leeyihiin waxay leeyihiin mufassiriin bay leeyihiin suliyiin bay leeyihiin waxay leeyihiin culamaa al-arabiyya waxaadi iyo macnaha maartay culimadii cilmigaas arabiyada looga dambeeyay suufiyadu marka waa qayb kamid ah 8 sanji weeyaan ahlus sunna wal jamaa suufiyadu waa hal sanji oo kamid ah suufiyada markaynu soo qaadano waxa magacaasi u baxay dad cilmi iyo cibaado labadaba ilaahay isugu daray subhanahu wa ta'ala dad intay cilmiga barteen ilaahay uga cabsaday wattaqullaha wa yuallimukumullah dabadna cilmiga ay barteen waxay ku amal faleen waxa weeyaan xaqaa'iq iyo mukashafaad iyo macnaha macaani u dhaadhacay dadkaas suufiyo loo oran jiray markay soo aasaasmeen ee wax yar ay socdeenba waxa ka hoos dilaacay kuwo magacooda sheeganaya labiskoodina xiran walaysu ala shay waxay diin haba yaraatay uga sugayeen aysan jirin ayaga magac dilay inta waa soo badanayeen waligoodna dadka ugu badan ee ka hadla ee ka diga dadkii suufiyada ay ahaayeen say soo socdeen waxa la oran karaa maantay ugu fara badan yihiin dadkii noocaas ahaa ee magaca suufiyada sheeganayay haddana isla markaa aan shuqul iyo shaqo toona aan ku lahayn maantay ugu fara badan yihiin maantay ugu qaabxun yihiin maantay ugu xamaaqaysan yihiin haddaba xilligii hore hadda farqa u dhaxeeya waa maxay farqa u dhaxeeya waxa weeye xilligii hore mar walba culimada joogta ayaa ka digi jirtay oran jirtay laysu minna anaga naga mid ma aha nahnu buraa'u minhum bari baanu ka nahay bay oran jireen hadda dhibaatada jirta waxa weeye culimadii ahlul cilmiga ahayd oo ama suufiyada saxda ah noqdeen ama culimada kale ee mudarrisiinta ee culumta shariicada garanaysa ha noqotee qof qura afka noo kooraya ma jiro bal kuwa sufahada ah ee shariicada aan sharciga raatoona ku lahayn ee waxay doonaan sameeynaya wax ka xaaraansan aysan jirin ayaa xukuma oo ay ka baqayaan nuuma oran karaan ahlu sunnanimada iyo diintaba waa laga saaraya haday hadlaan kuwa sufahada waa ka saaraya Soomaaliyeed marka culimadana waxa weeyaan ahlul cilmigaana dhibaatada ugu weyn haysataa waa taas weey ayadana gabadh falka ay sameeyeen oo dadkii ay macna uga digi waayeen waxay dadka noocaas oran waayeen falaysu minna ama ay sixi waayeen hadii la sixi kar waayeen ay ka bari noqon taasaan rabay in marka dadka la waariyo maadaama magac ay sheeganayaan barta la saxo oo la isku dayan xaq loo sheego hadii loogu taageero laga bari wasaasaan rabay midna ma aysan sameeynin bal waxay isku dayan badan oo kamid ah waxyaalaha ay sameynayaan ee waqaaxaadka ah inay u taawiiliyaan oo ay daliil u raadiyaan oo ay u soo salaaxan isku dayaan war waxaas wax ilaahay loogu dhawaanaya ma wax ilaahay inaga gar hal noqonaya ma culimada wallahu wa rasuluhu ahqqu an yurdu ilaahay ya rasuulkiisa mudan in la raali geliyo waxa weeye waxaynu nidhi marka culimadii macnaha maatay suufiyadu waxay ahaayeen dad cilmi iyo cibaado ilaahay uu isugu daray ee maysan ahayn dad iska xaadiqiin oo xamaaqa oo waxa weeyaan waxa ay ku kacayaan qofka aqliga la iyo xitaa qofka waalan kad banaanka soconaya ka uurka ku jiraaba inuu wax doqonnimo oo diin la'aan inuu yahay garanayo dad ku dhaqmaysan dad dhowrsoon oo cilmi iyo cibaado ilaahay isugu daray ahaayeen waxaan wax yar soo qaadanaa aan soo dulmaranaa Junayd al-Baghdadi sayyid suufiyati ilman wa amalan imaamkaas soo qaadanaa imaamka la yiraahdo Junayd al-Baghdadi wuxuu ahaa imaam ilaahay subhanahu wa ta'ala ilmi iyo cibaado uu isugu daray dabeedna xaqaa'iq iyo macaarif rabbaniya ilaahay uu siiyo wattaqullah wa yu'allimukumullah man 'amila bima 'alima warathahu lahu 'ilma ma lam ya'lam imaam weyn buu ahaa oo faqiiha oo culumta anwaa oo muhaddisa oo mufassira oo culumta anwaacda kala duwan ku takhasusay buu ahaa waxa la yiri sheekhaas waxa wardi u ahaa 300 oo ragcadood buu maalintii tukan jiray baa riwaayadka qaarna 400 oo ragcadood bay sheegayaan sidaas oo kale wuxuu akhrisan jiray 30,000 oo tasbiixa ayuu macnaha maartay akhrisan jiray baa waxa soo martay baa 40 sano isagoo marka gogol dhinaciisa saa u saarin baa markaas ilaahay wuxuu uga furay min al-ilmi an-nafi' wal-amal as-salih bi umurin lam tahsul li ghayrihi fi zamanihi waxa la funuunta cilmiga dhan buu yaqaanay waxa la yiri markuu masaa'isha fiqh ka hadlayo xitaa in yaro waqfa joogsasho iyo ku fidmad ma sameyn jirin baa sida wax weeyaan gamoon la galay uu masaa'isha mar jiray baa imaamkii weynaa aad garanaysiin ibn Zurayj oo macnaha maartay ahaa imaamu Shaafi'i fi asrihi الباس الأشهب شيخ الأورنجري أيها وحال يري وحال المحاد علمك كوجادي ابن زريج ومركز وحول يري بمصاحبة جنيد لصاحبي ده جنيد على صاحبي
masaa'il aad u fara badan oo weliga qalbigiisa aan ku soo dhicin ayuu ka faa'iideysan jiray baan waxaa la yidhi maalin maalmaha kamid uu mas'alo weydiiyay markaasuu wuxuu ka bixiyay jawaabo aad u fara badan markaasaa wuxuu yidhi ma jawaabaha aad sheegtay sheekhow saddex mooyaan inta kale weligay ma maqlin igu celi soo haddana kuwa ku ahayn buu ka bixiyay soo igu celi kuwa ma maqal wax soo haddana soo u kaadi sheekhow balaan qortee soo yidhi haddii waxaan wax aan yeedhinayo uu ahaa oo kitaab aan ka soo xifdiyay way fudaan laakiin wax ilaahay qalbiga uu ku soo ridayo ahaayeen waxa weeyaan dee markaas waan ku yeedhin lahaa laakiin sidaa ku qabo markaas sidaasuu ahaa Junayd al-Baghdadi adoonka macnaha noocaas cilmiga iyo cibaadadaas ilaahay uu isugu daray waha waxa laga su'aalay Junayd al-Baghdadi عارف كليلا عن معناها عن العارف من العارف markaas wuxuu man nadaqa an sirrika wa anta saakitun wa ruuxa sirtaada ka waramay adigoo iska aamusan lidaba waxa la yiri sheekha waxa uu yimaad maalmaha kamida nin dhalinyaro oo nasraani ah oo muslim suuradiisu soo yeelay markaas wuxuu yiri abal qaasimo ma macna qawli nabi ittaqu farasata almu'min fa innahu yanzuru bi nurillah mu'minka farasadiisa iska jira wuxuu ku fiiriyaa ilaahay nuurkiisa maxaa looga jeedaa xadiiskaas madaxuu raaricay Junayd al-Baghdadi kadibna madaxuu kor u soo qaaday wuxuu yiri marka aslim faqad ana laka an tuslima wuxuu gartay inuu gaar yahay ninkani wiil yar oo gaala isla markaan islaam iska dhigay markaas wiilkii yara meeshii ayuu ku islaamay baa la yiri waxa la yiri Junayd al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala wuxuu wadan jiray tusbax markaas waxa lagu yiri anta ma'a sharafika tattakhidhu misbahatan ma adiga sharafta leh waa tusbax wadataa baadad marka tusbax marka xoga aan ku qanacsanayn laakiin tusbaxu waxdii dalima jira hawayra salafa wa khalafa cididay lama hayo ahay taaqoliyaha macnaha ma arkaa wahabiyada diida sheekooda ibn taymiya waa qaba kutubihiisa ku xarno ku qor cididay ma jirto wuxuu leeyahay tariiqun wasaltu bihi ila allah la ufariquhu wa tariiqo aan ilaahi ku gaaray subhanahu wa ta'ala waligayna ma faaruqayo wayay marka Junayd al-Baghdadi oo la yiraahdo waa shaykhu hadhihi at-taifa sida ayuha hadaladiisa waxa kamid aha مذهبنا هذا مقيد بالكتاب والسنة من لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث لا يقتدى به في مذهبنا وطريقتنا وحول أنه هذانو نهاي الصوفية مذهب كيجو كفر الحدنياي كتابك يا سنة كفر الحدنياي وحقيل إيا وقالة إيا مركز ميلا وحلقة سؤرية معها قفكي وحول القرآن كان آخرين حديث كان عن قرين لو قمت ضيانية مذهب كيجو إيا طريقة يا طول بنان كنا جايين قفكاسي حضور نصوص شيكتنا وحويا واد الملو بأن مركز وحويا نوصل نسبة شيكتي أو نصور حميني وحكروا هذا الذي سكمدها الطريق إلى الله عز وجل مسدودة على خلق الله إلا على المقتفين آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لسنته وضد إلهي الله قاعدة وكحرمتهي خلقك وأنا قعنتهي إلا ضدك صور راعي راتك رسولك صلى الله عليه وسلم إيه سندسة كل عيم ويار راعي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وياي أنت مركا waxaan macnaha tusaalahan ugu soo qaadanana suufiyada dadka la yiraahdo dadka ahaayeen min tusaalahan ugu soo qaadanana waa dadka noocaas bay ahaayeen Junayd al-Baghdadi waa kamid ah sirru siqdi iyo abtigi ah kamid ah macruuf fuq baa kamid ah Ibrahim bin Adham Fudayl bin Iyad dad soo koobi karmaha waayay waxay marka nidhi xilligii hore xilli walba macnaha culimada joogta ayaa dadka noocaas ah macnaha magacii suufiyada sheeganaya haddana marka baridaka ka digi jiray umada uga digi jiray laakiin hadda dhibaatada taagan waxa weeye dadka ahlul cilmiga aha baan ka digaynin suufiyada saxda baan dadka magacooda biinaya ee isku xuqaya aan iska bari yeelaynin dhibaatada jirta waa taas marka taas ay u xaqiiqsano inay culimadii hore ka digi jireen waxaynu soo qaadanaa dhowr sheekh la yiraahdo Abu al-Qasim al-Qushayri risaaladiisa muqaddimadeeda wuxuu ku leeyahay markuu ka soo hadlay suufiyada iyo waxay ahaayeen in badan soo amaanay oo runtii amaan xaq ay u leeyihiin ku soo amaanay ayaa wuxuu yiri thumma i'lamu ogada rahimakumullah أن المحققين من هذه الطائفة انقرض أكثرهم ولم يبقى في زماننا من هذه الطائفة إلا أثرهم بيه وحيري أقادا أيها هيدين حريسته دادكاس أن الطائفة داس دادكود المحققين تاها صوفية الضبطاها إلى الدبر قوين أكثر كودين الدبر قوين حل قالنا وح كهري بوسنشرين إلا هراد موياني هراد معناها مقعي والله الشيقنا يا موياني يلبس كودين مويه وحري بوسنشرين كما قيل أما الخيام فإنها كخيامهم وأرى نساء الحي غير نساء هبود وحيري تندوينكو وتندوينكو دي وكلا دادكي ميشة تندقنان جري لكن دمرك ميشة جوغا دمركي معناها مارتد هوري اي لغو اقوان جري معها أنا هو يسبدشي وي مركا تندوينكو انبا تندوينكي لكن وحا كل عجرا معها دادكي هوري جوغ جري وي مركا هذا لبسكي معناها مارتد هذا الصوفية دي داد با صوحي لنايا
labisku waa labiskoodii laakiin dadka ku dhex jira dadkii ma aha dadka ku dhex jira dadkii ma aha wuxuu yiri soo waday bal in darasat at-tariqatu bil haqiqati budi bal at-tariqati bil kulliyati waa goor xilliga uu hadlayo waxa weeyaan waa 500 400 iyo wax yar weeyaan markuu hadlayo waa xilli aan dhaweyn xilligaas hadlaya shuu wuxuu yiri wayba tirtirantay dariiqadii wayba baabacdayba madda shuyuukhu buu yiri alladina kaana bihim ihtidaa shuyuukhdii lagu dayan jiray waa tageen buu yiri waqalla shababu alladina kaana lahum bisiratihi wa sunnatihi iqtidaa dhalinyaradii ayagana siiradooda iyo sunnadooda lagu dayan jiray ayaguna way yaraadeen buu yiri wazaala alwar'u wadubu yabisadu buu yiri xalaal mirashadii way yaraatay gogoshiisina waa la laabay dad waxay ahaayeen xalaasha 10 meelood markii loo qaybiyo 9 ka taga ayagoo ka baqay hadda iska daa shubahaadi waxaas saga xalaasha markii 9 meelood loo qaybiyo 10 meelood markii loo qaybiyo 9 ka tagi jireen haddana maxaynu aragnay dad suufiye sheeganaya oo waxay arkaan laba liqaya wax allaale waxay arkaan laba liqaya haay mukhadaraadkii bay cunayaan dadka xoolahoodii bay boobayaan waxay doonaan bay sameynayaan wax ka xaraamsan ma jiro si dad walwaalan bay u dhaqmayaan suufiyaan habina ku leeyihiin bal sufaha laysu sufiya bal hum sufaha sufiya bay waa sufaho magacii suufiyada ku ciyaaraya wuxuu washtadda damacu wa qawiya ribaatuhu buu damci ba macnaha xoogaystay buu yiri ribaadkiisina si fiican buu adkaaday buu ana in dunya iyo shahawaad iyo shubahaad la cayrsado qulubtooda waxa ka guurtay buu xurmatu shariicada xurmadeedii waa qulubtooda ka guurtay markaas wuxuu yiri fa'adu qillat al-mubalati bidin aw saqa dari'atin in farti la doono la qoro iskas macnaha ma taada ha la iskas saqleeyo baaba waxa laga dhigay aw saqa dari'atin dariica mid ugu macnaha ma taada adagba ina waxba ka xidhnaa waxba ka xaraansanayn farti la doono la qoro hadal dheer oo aad iyo aad u cajiiba ayuu halka sheekhu markaas kaga hadlay ila ugu dambeyntii uu yiri markaan arkay dadka noocaas ayaa waxaan isiri buu hadii sida lagaga aamuso waxaba loo maranayaa suufiyada la sheegay inay dadka yihiin taas ay ugu kaliftay buu yiri inaan kitaabkan qoro magaciisa risaalo la yiraahdo waayahay sheekh mucaasir oo la yiraahdo Nazar Xumaadi baa wuxuu leeyahay abrasu sababin lidhu'fi ahli sunnah asbaabaha waxa weeyaan ahlu sunnaha ducfiga ku keenay sababaha ugu macnaha maartay hada abrasaysana ugu banaan yaalsan waxa weeyaan buu yiri kow ida kharaja fiihim jaahilun yad'i annahu shaykhu dariiqatin wa ya'rifu asrar at-tasawuf sakatu anhu wuxuu yiri markii uu soo baxo mid jaahila oo sheeganaya inuu yahay shaykhu dariiqo asraarta tasawufkana nin garanaya inuu yahay iska dhigaya way ka aamusayaan ama waxay oranayaan la'allahu saahibu asrar wa anwar inaga daaya waxa laga yaabaa inuu yahay nin asrar iyo anwar u saaxiibay wuxuu yiri وإذا حرف منهم محرف العقائد السنية مدخلا فيها فلسفيات ضلالية سكتوا عنه markii waxa weeyaan mid muharrif oo aqeedada sunniyada ah taxriifinaya uu soo baxo oo markaa soo dhixgelinaya falsafaad iyo dalaaliyaad way ka aamusayaan bal waxay oranayaan hada yusqinu al-hikma hikmadu sugaya ويعرف وغرانيا علماء فلسفتي iyo wa'allaqatu bil ma'qulat ku calamki oo isagoo kala ma arag saasay oranayaan وإذا أفتى منهم جاهل وحرف أحكام الشريعة سكتوا عنه هذه مت جاهل وفضوضه ومركا أو تحريف في أحكام الشريعة ويكأ مسلم وحريان إنه من أهل المقاصد والاجتهاد المعاصر ورور المعاصر وبلك العضي وصوبح بيورنيا مركو كصوبح من يتكلم في العشق النبوي ويلوك نفس العبارات مئات المرات وهو أجهل من الجهل سكتوا عنه أو قالوا إنه يتكلم في محبة الحبيب mid macnaha isbihin bihinaya oo la maxabada iyo ishqiga nabiga ka hadlaya cibaaraadka jajabinaya oo dadka ka ugu jahilsanana way ka aamusay waxay leeyihiin wallahu wuxuu ka hadlaya fi maxabati alhabib wa oraya hadal dheer ayuu markaa halka marsiinaya ibn hajar al-haytami rahimahullah ta'ala kitabkiisa fathul mubin sharh 40 صفحة بقول أواتن يكو إلى بقول أواتن لبوا كليهاي مركو بدع ذاك هذي من حدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد حديث كان مركو شرح يوي فمن البدع المحرمة يوي بدع المحرمة الحرمي وحكم ذا يوي الانتماء إلى جماعة يزعمون التصوف ويخالفون ما كان عليه مشايخ الطريق من الزهد والورع وصائر الكمالات المشهورة عنه إن الله نسبة كتاب بدع حرام تاب إن هذه النقطة معها إن أظن نسبة شيء أيا بدع حرام تأكمل ذا يظن نسبة شيئا كوح تصوف شيئا إسلام كان خلافة مشايخ ذي طريقة وحي كتر سبنايين والزهد الدنيا ولا جساهدو هي حلال ميرشو وسائر الكمالات المشهورة عنهم هي كمالات كي كالوردن هي كشهورة بحقوده بل كثير من أولئك إباحية
لا يحرمون حراما لتلبيس الشيطان عليهم أحوالهم الشنيعة القبيحة ويجري بل إن بدن أقوى كمده وإباحيه حرام ما حرميان حرام ترم بس كشف كحسنيان محايا لي أحواش وذا الشنيعة أي إبليس بأوله قلي ولتلبيس الشيطان عليهم أحوالهم الشنيعة القبيحة أحواش وذا حنحن الشنيعة أي أقرح شيطانكم فهم باسم الكفرة أو الفسق أحق منه باسم التصوف يقول عبد الفضل يقول وحيري إن لا يرهض وكفر أما وافصق فيكم مدينهم إن لا يرهض وصوفي أما وافقر سيدا وحالة ابن حجر الهيتمي وإمامة الجرائس الفقيهة هذا نص فيها هوي أحمد الشاوي وسمر الجرانسين إنه صوفي وين آيات المركو شرحي قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون آية مركو شرحي وحيري أحمد الساوي وهذه الآية وإن كانت خطابا لليهود والنصارى آية الهبان نقطة من لو لها اليهود والنصارى إلا أنها تجر بديلها على من يشرك بالله غيره من المسلمين waxay faraqa ku jiidanaysaa dadka islaamnimada sheeganaya isla markaana ilaahay bayrkii ugu shariigeelaya alladina ya'taqiduuna fi awliya annahum yadurrun aw yanfa'una bidawatihim kuwaas oo marka i'tiqaadsan awliyadu inay waxna duraan waxna anfacaan maanta nin oran kara dadkaas ma joogan ma jiro intay joogan ayay boqolaal iyo kumanaan iyo malaayiin yihiin way dadka aan ilaahay ba aqoonin ee aaminsan inay culimadu dur iyo nacfi daati ay leedahay intay joogan bay joogan marka Ahmed Isaagu ka hadlayay maanta ka fara badan yihiin kana foolxin way xaqaayada la isku taagay aan laga gagabanin wallahu wa rasuluhu haqqu an yurdu wuxuu yiri inay waxna anfacaan waxna duraan bidawatihim bay aaminsan yihiin way yuhilluna ma harrama Allah wa yuharrimuna ma halal Allah isla markaana ay xaalayn karaan wuxuu ilaahay xarrimay wuxuu xarrimayna ay marka xalaalay ee imcaan wuxuu xarrimayna wuxuu xalaalayna xarrim karaan ومع ذلك الرجال صلاته أي وحى أمسنين يحدثون بدعا عظيمة ما أنزل الله بها من سلطان وحيسود الرسين يان بدع ووين وإلهي وحجاء وسلسود الجنين ويجعلون تلك البدع طرقا لهؤلاء الأولياء بدع جبا وحي كدغ يان طرق أولياء أي لهذه نيتهي وحيالها مقامات كغارين أولياء إنيتهي ساسي معناها ما تليين ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم مكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون آيات الصوغات هذا أحمد الساوي وإمامك الجرنسي يسوي فيها هرا وحان قصون لي وحويان مركز طبع علماء الشوكة أيها كدقي جرتي قارهان علماء الصوفية يقطبتها أيها كو مقعوضا بإنايا مروا البقول أبو قفر أرلي انت هلكا كقبتها بسكفوين جرين maxaa marka maanta loo aaminsan loo hoganaya maxaa loo aaminsan loo hoganaya maxaa waajibaadkii la saarnaa culimada ay u gudan leedahay ee isla hogaaminaysa ibn al-jawzi rahimahullah ta'ala kitabkiisa talbiis liblis safhada 174 ila 175 wuxuu ku leeyahay wa nahnu nadhkuru ba'd ma balagana min aghlaq al-ghawmi macnaha qolob walba meesha ibliisku ka macnaha maanta talbiisiyay ayuu ka hadlaa kitaabka uga hadlaa marka wuxuu yiri waxaanu sheeganaa waxyaalaha qoomka xaqooda naga soo gaaray oo qaladyaalka ah والله يعلم يري أننا لم نقصد ببيان غلط الغالب إلا تنزيه شريعة والغير عليها من الدخل وما علينا من القائل والفاعل بوجه وحول قصدك يوم معها أرنت أنو كلام هاي وقفك قلدمي معناها أرنت أنو كلام هاي عدينت يا شيء جد هذا إلا كقلدمي ويا قلت كيسة معناها شيء جد أنو شيء إنه مثل قلدمي قلت كيسة أنو عدينا إنه قصدك عن كلام هاي وح كلامها إلا شريعة النسيد الذي هو شدة مويان وحيلها أباطيشة هي شريعة السود حق اللي أنا كوفنا هي غيره أنو شريعة أغير يسمى إلهي درت أغير يسمى هاي دخل كي فساد كل السود اللي أنا أنو مركا كغير يسمى وكحنا هاي وحول مرة ضاي سيدات هاي ضل هي لطونا كمالهم من القائل والفاعل بوجه معناها متكسطوها الله أو معناها نجوا إحنا جشيجا هي متكسطوا فعل فرح كوكعة من بدن كمالهم بولي أنو شريعة إن اندفاعنا تاسع إلهي ودواننا ونحن نقول مثل ذلك وإنما نؤدي بذلك أمانة العلم بوري أركا وحن كبدنا علمك أمانة ديسة وما زال العلماء يبين كل واحد منهم غرض صاحبه علماء ما يسنكسون بوري مدول ومدك كلا إنه صاحبك معناها مدك كلا إنه قلت كيس عضينيه قصدا لبيان الحق أيضا قصدك يا حق إن العداية لا لإظهار عيب الغالدي ما هي قصدك مدكن خلدمي عيب كيس إن لموتيه وإن معناها شرع حق العداية ولا اعتبار بقول جاهل بوري
مد جاهلا قول كيسو اعتبار ملك كاسو يقول أرنايا كيف يرد على فلان الزاهد المتبرك به أو مش قبل كي وينا الزاهد كأهل البركة سنجري بما أنت اللي ردنا يا الله أرن كرا وخلبي هاي تا واحد اعتبار ملك وقف جاهل وقف كسارنايا لأن الانقياد وهو جانسنكو إنما يكون إلى ما جاء به الشريعة إلى ما جاء به الشريعة وحلوه جانسنا وحي الشريعة الله تيني لا إلى الأشخاص